madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda carbiska shaqo qaran oo maanta ka qalin jabinayay dafcadii labaad ee shaqo qaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku weelinayay wasiirka gaadiidka Soomaaliland taliyaha ciidanka qalabka sida maayirka xigeenka caasimadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudan iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay madasha agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan waxaana uu sheegay marxaladii kala duwan ee barnaamijku soo maray mudane madaxweyne dafcadda labaad ee barbaarta shaqo qaran ee maanta tababarku u xidhmaya waa aqoon-yahano xula oo ku yimi tartan furan oo leh xirfado iyo aqoon kala duwan oo heer jaamacadeed ah waxay buuxiyeen kaalin kasta oo looga baahnaa mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay in akademiyada shaqo qaran loo soo magacaabo talis iyo macallimiin u gaar ah oo xul ah waxaanu dhisnay hoy cusub oo ka kooban 4 guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhan tahay 400 qof iyo 40 musqulood iyo xamaamo oo wada jira waxa akademiyada ku soo kordhinay dhismaha howlweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay 35 mitir iyo 15 kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan waxa kale oo sanadkan kuliyadda ku soo kordhay dhismayaal adeeg iyo maamul waxa kale oo ku soo biirnay hooso gaadiidka la dhigo waxaanu goobo ka mid ah akademiyada gudaheeda iyo xayndaabkeeda hareerihiisa ku xidhnay ama ku rakibnay 34 kameradood oo kuwa ilaalada amniga ama loo yaqaano CCTV madaxweyne waxa akademiyada dhexdeeda aanu ka samaynay jid laami oo rooga oo dhererkiisu dhan yahay 820 mitir dhanka kale waxa hadalka iska daba qaatay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale iyo wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland madaxweyne adduunka taariikh baa ka hadha hawshan hadda aad bilowday sanadkii hore iyo sanadkanba waa wax ku cusub geeyigan hadda halkii aan ka nimid iyo meelaha qaar kale oo lagu dhowdhow wax ku cusub waxa taa u hurtay inay dhalinyaradii badda isku tuuraysay wadankooga aaminaan oo shaqo ka helaan iyo aad kalsooni madaxweyne u siisay marka historyga way ku gelaysaa taariikhda mudane madaxweyne anagu siduu agaasimu sheegay ciidanka qaranku halkan wuxuu ku leeyahay oo quraata nabadgelyada iyo macallimiinta waxa runtii mucjiso ah ama isbedel weyn ka muuqdo ama aan isleeyahay taariikhdu in badan way xusi doontaa goobtan maanta aynu joogno oo berigii Soomaaliya la oran jiray halkana waqooyi galbeed loogu yeeri jiray meeshii kaydkii taangiyada waqooyiga ahaan jirtay ee lagaga duuli jiray dadka Soomaaliland oo dhan in maanta isbedelkan uu ka dhaco oo loo bedelo meesha halkii dadka lagaga duulay laga soo saaro dadkii dalkan dhisi lahaa dadkii dalkan hogaamin lahaa iyo maskaxdii cusbayda mustaqbalka waxaan isleeyahay runtii waa arrin taariikhdu in weyn qori doonto waa tamaraysa maanta in aqoontii Soomaaliland inta la ururiyo iyagoo markii hore academy ahaa haddana loo bedelo inay noqdaan hogaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer waxaan jeclahay marka koobaad in Ilaahay u mahadnaqo marka labaadna inaan u mahadnaqo madaxweynaha iyo gruubka shaqo qaran ee hawshan maanta aan halkan u fadhiino taabageliyay suurtagal ka dhigay aad iyo aad baan jecelahay inaan ugu mahadnaqo marka xiga waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa agaasimaha iyo tiimkiisa أنا أمسان هاي وأنا وضع شقيني سدح له بينمو ويهوينا ينهلكن وحقيقة ترتوي هذه أدوان بقادين يا وهم بليين يا إلهي نوع نكرر شيئنا تعب يسمينا تعب كوجاس إنه حصليه مستقبل كنا وحسي دونه قرن كني ولا جسي وكتجي إنه حكومتنا هي مدحونا جمهورية الصومال. ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxa soo gabagabeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxna uu bogaadiyay barnaamijka shaqo qaran waxaan ku ammaanayaa marka hore inaan noqoteen intii markiis cilmiga loo baaray aqoontoodana ku soo gashay oo qofna aanu khiyaamay dustus iyo gacan qabad ku imanin
laga bilaabo maanta waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo kayd baati madkiisa marshi oo rag iyo dumar kayd ku jirtaan marka dalka loo baahday dhibaata dhacdana waxay tahay frontiers-ka ugu horeeya beesha doonta joog maanta dagaalkii ugu weynaa baynu ku jiraa fayrasaynu dagaalamaynaa wacyigelin baynu u baahannahay xoog baynu u baahannahay dhammaan kuwa horiya kuwa dambe shaqada qaranku waxay ka ogeyihiin forontiyaalka halkii lagu hadala tagaaya waxay iska xaadirayaan barasaabada iyo gobollada waxay iska xaadirayaan degmooyinkooda waxay diyaar ku hanayaan wixii looga baahdo taasaynu joognahay halkan markaa waxa ku dhaga doonada kubaro waxaa weeye inaynu maskaxda sidaynu u fikirro aynu u hogaamin doono dalkeena jiilalka soo socda aynu bedelno waxaa loo baahday in la isu keeno intii la heli karo dhalinyarada waqtiga ugu habboon la heli karo la baro transformation in la bedelo fikirkeedii qoys gobolgobol reer iyo hebelada ahaa oo wax lagu wadaago marka halkan waxaan u keenay inaynu isla baranno dowladnimadeenu waxay tahay waxaynu doonayno iyo sidaynu wada qabanayno qoladiinu tacliiminta aqoontii aad barateen intaasi halkan lagu kordhinaya haddaan tababaranina oona maskaxdaada ka bedelin keligaana waxba hogaamin karaysaa dhibaataa ka hawlo waa xamse axmed saleeman xamse dabaare telefishinka star hargeysa